وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. مستجمع magaalada Laascaanood ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay dhismihiisa xaflad lagu qabtay masaajidka. xafladan oo ay ka hadleen mas'uuliyiintii soo waday dhismaha masaajidka iyo qiimihii ku baxay, iyagoo halkaas ka sheegay kharashaadku meeluhu ka soo galay iyo qaabkii uu ku bilowday dhisidii masaajidka. waxa halkaa lagaga hadlay taariikhdii masaajidka la aasaasay, isagoo oo maanta jooga marxaladii ugu fiicnayd ee uu soo maro mustajamaca weyn ee xarunta magaalada Laascaanood. haddaba waa kuwan iyagoo ka hadlaya mas'uuliyiintii qaban qaabinaysay dhismaha masaajidka iyo culamaa u diinka mustajamaca magaalada ayaa masaajidkan asaaskiisii laga bilaabay halkan wadaha magaalada ay tahay inta wuxuu soo maray masaajidkan waa marxaladii afraad buu maanta maraya. adelkii aynu ku qanacnay ee masaajid ahaan aynagu qanacnay buu maanta ka dhisan yahay. waxaa ku baxay masaajidka dhismihiisa 449,632 falis. waxayna ku kala baxday dabaqa hoose, dabaqa labaad, laba taangiyo biyaha ah, laba suuli oo dumarka iyo ragga ah, laba meelood oo ay dadku ku weysaystaan oo ragga iyo dumarka kala ah, baarkinada masaajidka, dhiraynta masaajidka, gogosha masaajidka oo labada dabaqba aan goglay. haddana ay noo yaalaan 5 duub oo cusub oo aan weli la isticmaalin oo aan ugu talagalnay haddii kuwani ay bedel u baahdaan inaan dib cid wax loogu weydiiyo bal marka hore iyaga loo isticmaalo. waxaa kaloo ku jiray masaajidka dabaqa hoose wuxuu dhammaaday bishii 8aad ee 2009. waxaa ka shaqaynayay intaa muddada ilaa maanta ilaa maalintaa 7 shaqaale. waxaa ku jirta shaqaalahaasi mushaharkaan isugu jiray 7 shaqaalaha. waxaa ku jirta kharashkii nadaafadda, waxaa ku jira kharashkii biyaha oo dhirta iyo weysada iyo suuliyada loo isticmaalo. waxaa masaajidka dhismihiisa ku jira guri ay degan yihiin shaqaaluhu. waxaa ku jira bakhaar aan ugu talagalnay dhismaha qaabka masaajidku u baahan yahay in kayd ahaan ugu yaallo. waxaa ku jira maktabadda aad aragtaan oo diyaarsan, laakiin wixii qalab ah ee hoos yaallay aana jirin. kharashkaas markaa wuxuu ku baxay agab wixii agab ah ee masaajidku u baahnaa dhammaan oo maanta u dhammaystiran. waxaa maanta masaajidka u yaalla oo koobka ku jira galabta saacadda aan laga hadlayo $5,379. inagoo ku hadlaya shirkadda Dallis oo ah shirkaddii lahayd fulinta masaajidka. badin maayo kelmadaha oo culimadii waa dhammaysay iyo mas'uuliyiintii masaajidka. waxaan halkan ka caddaynayaa masaajidka run ahaantii waxaa mahad u leh marka horeysa ilaahay subxaana wa tacaala na waafajiyey dhismihiisa. ilaahay noo fududeeyey subxaana wa tacaala inaanu dhisno, waayo waxaan ilaahay kula qaban ma qaban karti. qaybkii laga sii wado ayaanu dardaarmaynaa. qaybkuma go'o masaajidkuna hadda waxa weeye masaajidka caalamiga ah intaa leega ballaaran ee maaragtay dabaqa ah ee waxa weeye maanta waad garanaysaa dowladuhu miisaaniyadaha ay ugu talagalaan masaajidada u joogta ah oo loogu talagalo. marka maadaama ay dadku iyagu ay masaajidka iyagu dhistaan, iyaguna ay dowladu yihiin oo maaragtay la baxeen qarashkiisa wuxuu ku socon lahaa iyo hawlihiisa iyo shaqadiisa iyo wixiisa inay laga warhayo oo aan odhan masaajid waa dhaqaale halkaas noogu egyahay oo dhan ayaan iyadana isu dardaarmaynaa. dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran, allah yuciinakum yaxfadakum. ilaahay baana maanta subxaana wa tacaala awala wa aakhira. intaas ayaan uga baxayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. cabdikariin nolol S24 TV xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.